horta ugu dambeyn waxaan leeyahay waa ujeedin dawanan only macda YouTube channelkan hadaa fiirsanoosid intan aad soo gaartay subscribe sar and YouTube wax enjoy ugu yahay waa taqaanaa like share comment dhammaan enjoy ugu dhig insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دقيستيال ميل والبوا جوجتان سيول ومرة من عبد ديس وقال يكسر رواه برنامج كترتنقونات إلى عدا أبويه. برنامج كترتنقونات كرادي أبويه كنتي وبرنامج أدرس بدن ما أنت وحالك كترتمي دون حافظها. سيقال يصير كل حافظ في أغرب وحنا لما حافظت كرجينينا إن مركزي نلاقي لالين دوران شرقية يصير كل habsami socodka barnaamijka tartan-aqooneedka idaacadda Afhooye. Barnaamijka waxaa inoo taageerinayaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alqamar waxaana su'aalaha lagu tartamaya inoo diyaariyay iskuulka. Markaan waxaan siinayaa Maxamed Saciid Xalane si uu inoogu kala cadeeyo xaafadaha lagu bilaabayo xaafadda lagu bilaabayo su'aasha koowaad ee barnaamijka iyo sidoo kale maanta barnaamijkeena. Maxamed Saciid soo dhawow. أنا ما سنتها محمد حسين لوضع التقنيات السيجا اللي فيها قرى وصول بيننا وعن كل سنة إن مركز نالي بعدين نشرح برنامج كم يتهاجموا يصندرين هدي السؤال كجوابتان مركز بوق على قصمين برنامج كان حسب السعود كيسي أنت بدل ذيك عن تقايا وحرجينا إلى مركز نالورتان وقت قال مركز السؤال مركز يدخل فيديو أسي وقت كده ومعتان waxaa ka saaran qoratuurkii waxaan ka codsanayaa labada kooxood ee xaafadda Siigaale iyo Ifyaaqo min halka kuna soo dirsada si qoratuurka aad ugu qayb gashaan hal qof oo Siigaale iyo hal qof Ifyaaqo ah hal iyo labo ayaa markaa halkan saaran su'aasha waxaa lagu bilaabi doonaa qofkii qabsada labo qofkii hal qabsada wuxuu noqon doonaa su'aasha labaad maada waxaa ku bilaabi doontaa su'aasha xaafadda Ifyaaqo halka Siigaale su'aasha labaad noqon doonta السؤال الجواد وفي آخره السؤال الجواد والسيجارة وأشوف هم حافظها تكمل أيام ما كان رواينا الله الله إن في آخره السيجارة شروع البرامج وحكم ده إن عن اللي يدوم هيل كريم موبايل إيريا إن عن اللي يدوم هيل كريم إنترنت هذه اللغة لازم نكمل ده اللي يدوم خبطه حاول هم بعد وين إنسان نبغي أضمان الشخصيتين sidoo kale ma maqli karo buuq iyo sabaxan haddii kale waxaad laga jaran doona qaar ka mid ah dhibciyaha shaqaysateen haddii su'aal aad ka jawaabteen guddiga uu qaldo iyadoo dood iyo muran aysan jirin waxaad soo qoraysaan warqad ay ku qoran tahay su'aasha aad dacwada ka tihiin guddiga haddii uu isla maanta uu xalin karo uu xalinaa haddii uusan xalin karin beri jawaabteeda waa helaysaan hadduu ilaahay kala noqdo laakiin yaysan dhicin inaad buuqdaan oo aad su'aashaasi ka doodaan mar walba haddii su'aashaasi ay sax idin tahay waxay diyaar u tahay ama guddigu diyaar u yahay dhibci aad ku leedahay la gesiyo haddii su'aashaasi wax dhibic lagu waayana waaba lagu waayo marka buuqa iyo waxaan diidaynaa in tartankii uu ka galo sidaa laajigeeda xaafadaha waxaan qabsanaynaa tartanka uu si habsami leh uu inoogu socdo hadda ka horna ma dhicin hadda kadibna waxaan rajeynayaa inaysan dhicin دوله كلام نقول سؤال شكوات في آخر لقى وسؤال ديني حينون عيسى إن أنت سؤالها أبو دقلين مهم سيدنا كعصنا إن حافظها على المرض وقصة وبيع كرم سيجا عليه يسيروا كله في آخر مهم سيد ويا محمد في آخر على صور الكرام نمبر إبر ليه حل لبا سلاش سديد لبا خمسة في آخر على صور الكرام نمبر إبر ليه حل لبا أما هو طبعا لبا سديتا إلى سجال وعطن إلى لبا خمسة
waa 89 konton ay laga soo wada garaa xaafadda ifiyaaqiro furu waa 89 konton halka siigaale laga soo wada doono nambarka ah eber 6 eber 6 lambarka siigaale laga wada doono wuxuu noqonayaa eber 6 eber 6 waa hagaag sida aad hordhac barnaamijkeena waad ku aragteen su-aasha koowaad waxaa lagu bilaabi doonaa xaafadda ifiyaaqiro su-aasha labaadna waxaa iskala siigaaya su-aasha koowaad ifiyaaqiro dhagaa fura waa su-aal diini ah su-aashan waa diini waxay ku socotaa tartamayaasha xaafadda ifiyaaqiro waxayna u dhacaysaa sanadkii 9aad ee hijriyada waxaa dhacay qaswadii tabuuk ee uu calanka weynna u siday abubakar sidiiq radiallahu canhu qabaa'iladii ka qayb qaatayna waxaa ka mid ahaa reer khasraj haddaba sheeg magaca saxaabigii calanka u waday reer khasraj waxaan filayaa tartamayaasha ifiyaaqiro inaad garateen su-aasha jawaab saxsanna aad la imaan doontaan insha allah waqtiga waa u dhacay tartamayaasha xaafadda ifiyaaqiro jawaabta tartamayaasha xaafadda ifiyaaqiro jawaabta tartamayaasha xaafadda ifiyaaqiro jawaabta 3 jeer markaan idin tirin doonaa ifiyaaqiro jawaabta kow kamid ah anigoo mid ka mid ah tartamayaasha xaafadda ifiyaaqiro su-aasha jawaabteeda waxay noqon doontaa maxamed ibn maslaan jawaabta uu bixiyay tartamahaas ifiyaaqiro ka socda sax iyo qalad guddiga su-aashan oo ahayd tii koowaad ee guud ahaan barnaamijkii tii koowaad aan weydiino xaafadda ifiyaaqiro jawaabta ay keeneen waa mid sax aan ahayn haddii ay ka faa'iidaysanayaan tartamayaasha xaafadda siigaale ka faa'iidaysiguna waqti ma lahan siigaale jawaabta اللهم وفقنا لما تحب وترضى نور مختار سليمان باس كلمة ترتمي حافظ السيجارة سؤال الجواب إذا دام سودي مراد مسعد بن عمير jawaabta uu bixiyay tartamahaasi sax iyo qalad guddiga su-aashan waa ahayd tii koowaad ee barnaamijka aan weydiino xaafadda markaasi ifiyaaqiro garoon weyse siigaale loo hordhigay siigaale ayana waxba kuma soo kordhay haddii labada xafadood ay qaldeen su-aashaasi jawaabta saxda ah wadaag su-aashaas jawaabteeda macluum waxay noqon doontaa waxa uu ahaa saxaabigaasi xabaab binulmundar sigala dhigaha fura su-aasha waxay u dhacaysaa sida sanadkii 9aad ee hijriyada waxaa dhacay qaswadii tabuuk ee uu calanka weynaa u siday abubakar sidiiq radiallahu canhu qabaa'iladii ka qayb qaatayna waxaa ka mid ahaa reer aws haddaba sheeg magaca saxaabigii calanka u waday reer aws waxaan filayaa inaad garateen in jawaabta saxsanna aad keeni doontaan tartamayaasha siigaale siigaale jawaabta 3 jeer aad idin tirin doonaa markan mid ka mid ah tartamayaasha xaafadda siigaale اللهم وفقنا لما تحب وترضى سؤال الجواب إذا دام سودي مراد حسين بن عمير jawaabta uu bixiyay tartamahaasi xaafadda siigaale ka socda sax iyo qalad guddiga barnaamijka su-aashan oo ahayd tii labaad ee barnaamijka iyo tii koowaad aan weydiino siigaale jawaabtay siigaale ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn haddii ay ka faa'iidaysanayaan tartamayaasha ifiyaaqiro mid ka mid ah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله انا وامد كمدا ترتمياش حافظ إفياقiro سؤال jawaabteedu waxay noqon doontaa Usayd bin Hudayr jawaabta uu bixiyay tartamahaasi sax iyo qalad guddiga su-aashan oo ahayd tii labaad ee ugu barnaamijka iyo weliba tii koowaad siigaale ay soo hareermartay ifiyaaqiro ayaan xaqiiqna sida ugu faa'iidaystaan ifiyaaqiro jawaabta ay keeneen waa mid sax ah hal dhibcood ka faa'iidaysta dhegeystayaal waxaa halkan inoogu soo idlaaday 14 su-aalood oo aan weydiinaynay tartamayaasha xaafadaha siigaale iyo sidoo kale xaafadda ifiyaaqiro runtii tartanka maanta aad buu xiiso gaar u lahaa ee xaafadaha tartamayay bal maxamed saciid aan siiyo natiijada ay kala keensadeen xaafadihii tartamayay iyo sidoo kale
kulamada kulanka beri la ciyaari doono Hamza. ومحمد waxaan ku bilaabay su'aalaha xaafadda if iyo aqra waxaan markaas weydiinay cid walba oo dhinaca todoba su'aalood xaq u leeyahay wadarta guud afartoon ahayd todobadii su'aal aan weydiinay if iyo aqra todobadaba waxba kama jawaabin hay'ashada waxay heleen hal ka faa'iidaysi oo kasoo fakatay siigaale xaafadda kalenta la yiraahdo siigaale iyana todoba su'aal aan weydiinay todobadii su'aal aan weydiinay waxba kama jawaabin oo dhammaantood way hareereen laayashe waxay markaas ka jawaabeen laba su'aalood oo kasoo fakatay xaafadii fi aqra sidaas maanta dhibcuhu lagu kala baxay waxay noqon doonaan laba dhibcood oo la timid xaafadda siigaale iyo hal dhibac fi aqra guusha siigaale laba dhibac iyo hal dhibac marka maanta tartan arabi waxaa darasa siigaale beri waxaa tartami doonta xaafadda cata iyo embaraati cata waxaan leeyahay waqti fiican ku imaana si barnaamijka program markaa ku dhexo waagaan barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda afweeye waxay noo taabgeliya dugsiga hoose dhexe iyo sare ee alkhamar su-aalaha lagu tartamaya iskuulka ayaa soo diyaariyey anigoo maxamed xuseen cusmaan maada ee barnaamijkeeda la socodsiinayay maxamed saciid xalana wuxuu ahaa guddiga jawaab celinta ee barnaamijka cabdulaahi maxamed qadar istaarkana wuxuu ahaa farsamayaqaanka faraha fudud ee marsarka iyo makiinadaha inoo kala rogay barnaamijkan midnimada berida ku kulmi doono sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu أنا عايش عند جوجا مسجد. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد. والله فرحة دي مرسوقه وقرأ إلهي محمد أسكله كديك دذلك أن سمعني جوجا نقول كبير إن أنقار من رجال رمضان صعد إن هرمر أن سمعني قابل إن شاء الله إن نقول يسند بإذن الله الكريم.